وحسون ويلي أتوبري يرجليه لطريه قف الله ذكر روحنا يرجلين كنا كسكنا كعين كنا جوين كنا وحسون ويلي يا محمد عمر عثمان السلام عليكم. آد بaan ku faraxsanahay walaalayaal in fagaarahan iyo barkulankan aan isugu dhimanay si aan ku kala fiirsano markii la yaryara ee dugsiga hoose lagu jiray macallimiinteedu ilaahay cimriga u barakeeyo waxay aad loogu sheegi jireen inuu cilmigu dadka dhex yaalo in garashada iyo ogaalku dadka dhex u yahay ilaahayna qofba in ka siiyey marka walaalayaal waxaan halkan la imiday ruux u diyaarsan inay wax ka barato qof walboo halkan fadhiya meelahaan isleeyahay shaksiyadaada iyo ogaalkaaga iyo adduun araggaaga way dhiseen waxbay ku dareen kamana maadsamaysid intaad nooshahay waxaa ka mida madalahan oo kale qof baad ku baran fursad baad ku arki ogaalkaa maqnaabaad ku maqli qof hawdoora ama aad hiigsan jirtay ayaad si fudud ula kulmi talo kaa maqnayd baad heli wax mugdi kaaga jiray baad diinku imid madala ka soo dhismaa wacyiga qofka ka soo dhismaa intaa waxay ku xigsiinayaan walaalayaal qulqulka noloshu qofku maruu soo galaa maruna uu ka baxaa waana sunnaha ilaahay subxaanahu watacaala uu nolosha u sameeyey mar baa soo galnay mar baa muhiimaddu waxa weeye intaa u dhaxaysa markaan soo galnay iyo markaan baxayno waxaynu qabanno sidaynu u dhaqanno iyo qofkaynu noqonno taasaa cimrigaaga oo dhan cimriga dhantahay waa inta dambe inoo dhiman maaragtay aakhiradaa dhammaanay caalamulbarsax baa jira oo qubuuraha ah caalamkana maanta ku noolahay baa jira iyo caalamka aan dhammaan ee aakhirada marka cimrigaaga dhabtii waa kaa dhammaanayna dambe marka inta yaree markaad nolosha soo gashay iyo markaad ka baxaysa u dhacaysa qofkaad noqoto weeyaan qasdiga noloshaa ka leedahay maaha waxaad hesho maaha waxaad haysato maaha waxa lagugu yeedho maaha sida lagu arko maaha waxaad kasbatid maaha titleska ku xidhan garbahaaga maaha muunada dadka dhexdeeda kugu taalla maaha waxa jeebkaaga ku jira maaha waxa kaa maqan waa qofka aad noqotid ugu dambaynta markaad sii dhibanayso xitaa abaalmarinta ugu weyn ama welwalka ugu weynaan arkayso daqiiqadaha kuugu dambeeya noloshaadu waa qofkaad noqotay noloshaada intii yareedeed noolay waxaad iiga barateen in si walaalnimo leh lexejeclo leh daacadnimo leh laabfurnaan leh oo isdhisdhis iyo jilid iyo isyeelyeel ka fog oo dhabnimo leh baad iiga barateen inaan wax idinku sheego waxaan caawa rabaa inaan 5 qodob oo keliya idinkala sheekaysto 5taa qodob waxa weeyaan 5 aan isleeyahay maanta way nagu adag yihiinoo qof walba maskaxdiisa oo dhalinyaro way ka dhex buuxaan maanta walaalayaal dhalinyaro waxaynu noolnahay xilligii ugu fursadda badnaa ee aadama noolaaday sidoo kale waxaan noolnahay xilligii ugu caqabadaha badnaa ee uu insaanku ugu nuglaa ee distractionska iyo dhabqiyayaasha ay adduunyada ku badteen ee xidigaha malawaalkii ay samaysmeen ee qofka dhalinyarada ay u fududahay inuu lumo teenagerskeenu maanta cidda ay xidigaha ay arkayaan ee internetka iyo aaladaha ay warka ka helaan ay ku arkaan badankoodu waa shakhsiyaad nambarada social mediaha kala xidhiidha lagu qiyaaso guusha ay nolosha ka gaadheen waxaa samaysmay humaag ku saabsan wax noqoshada iyo wax gaadhidda waxaa samaysmay hami aan dhab ahaan la xidhiidhin shaqada dhabtee insaanka wax ka dhigta camalka ilaahay ino amray inaynu samayno si aan u noqonno qof iyo bini aadan tayo leh markaan saaka halkan joogay aad baan dadkayga u jecelahay iyaguna way jecel yihiin dhalinyaro ay timid waxay ku tiri sawir aan galno waan galnay kuwa kale yimid sawir aan galno waan galnay
kuwii saddexaad baan sayn kari waa waxa ku yidhi war dhegaysta war fiican baan ii sheegaya hadda inaan sawir wada galno oo sawirkaas uu yahay xidhiidhkeena keliya iyo inaan aniga iyo adigu isbaranno oo wax kala faa'iidno haddaabad waxay ku tuhmayso is leedahay maxamed waxa ag yaalla ama waxa ku jira wax ku anfici karaa inaad aniga ibaratidood aniga ila xidhiidhidoo xidhiidh shakhsiga oo ibni aadan oo qofeedaynu yeelnaa ka mudan inaan sawir wada galno laakiin qaabkaynu u noolnahay iyo siday noo saamaysay teknolojiyadda baa keenaysa in qof walba uu jeclaado nolosha dulxaadiska ah nolosha maxaa lagaa sheegayaad ah nolosha imise viewer iyo imise like iyo imise share baan haystaad ah waxa sii dhimanaysa ruuxda ibni aadantinimada danaynaysa qofkan ma la yeelan karaa xidhiidh dhaba oo noloshayda saameeya that's time today waxaan ka jecel lahay inaan sawir la galno qof caan maanta waxaan la kulmay hebel waxaad ka jeceshahay maanta wasiir halkan fadhiya adar sawiraan kula galo markaan la gashidna maanta wasiir hebel oo sheekaysanay oo xaaladaha dalkan ka sheekaysanay waxa ka muhiimsan inaad shakhsiyadda qofka baratid la sheekaysatid waxa kugu jira u sheegtid wuxuu kaa caawin kara u sheegtid haddaad wax ka caawin kar ibni aadantinnimadii baa maanta inaan dib u soo noolayna inooga baahan walaalayaal hal shay baan laakiin idiin sheegay weliba waxaan idinku sheegay si aan gabasho lahayn oonan raaligelin ka bixinayn oo kalsooni iyo xaragalaan idinku sheegay maadaama dhabqiyayaasha iyo inuu qofku ambado maanta ay aada u badan tahay oo qofku inuu dariiq joogo shaqada yara uu qabanayo laasimo ku samro camalka wanaagsan wax lagu noqdo qofku joogtay ay adag tahay waxaan idiin sheegay walaalayaal qofka maanta guulaystay waa qofka jooga dariiq uu u malaynayo inuu natiijo fiican ka keenayo ku samra lagu barto lagu maago lagu saluugo marka dambena la yidhaaho kaasi waxaas waa isku ekaadeen way nagu yartahay taasi maanta ani markii aan jaamacadda galay waan ogaa waxaan qaaday dariiqyo badan oo dadka aan kaga eeganayay inaan siday noqonayaan oo kala noqdo midna ima geyn wixii qalbigayga ka dareemayay laakiin maalmaha ka mid ah waxaan go'aansaday inaan qaado dariiq aan loo badnayn inaan tagay uu dhib badnaa iska rafaad batoca uma rabo inaan wixii iga soo maray idinka sheekeeyo laga yaabaa inaad masraxyada adduunka markaa ka hadlaysaan uga sheekeynaya aragteen laakiin hal shay baan idiin sheegayaa wixii iga dhigay qofkii aan rabay inaan noqdo aan kaas maanta kuwaan ku bedelanayaana ma jiraan waxaan rabay inaan kuu sheegaa waxa weeyaan markaa waxaad hadda wadaa hadduu yahay wax qalbigaaga ku weyn oo aad aaminsan tahay inuu adiga wax ku tarayo oo aad aaminsan tahay inuu dadkaaga wax tarayo oo aad aaminsan tahay inuu faa'iido kuu leeyahay intii aakhiro cidna ha ka raali gelin do it samee daba joog ilaaha muu qofna ku raaci waayo daba joog trust me halkan maanta aan joogo halkan maanta aan joogo maalin baa jirtay anoo dhaga taagtaagan oo dharkaygu aanu isku aadaadanayn oo diyaarsanayn oo markaan damco inaan halkaa wax ka sheega laadada waa unbaa fadhiya u banneen maantana halkani waa meeshayda but the king of the freestyle bay qaarigu yidhahaan waad soo istaagay and you own the place 5 qodob baan rabaa inaan idinla wadaago ugu horeyso maanta qofka dhalinyarada ay waddankeena ku koraya duruuftiisa aynu ognahay dhibaatadooda baydana haysatay caqabadaha badan dareemay dhaqaale xumada laga yaabo arkaya fursaduhu xuquuqul u arkaya xidhiidh caawinayo badan aanay jirin supportive environment oo u diyaarsan aanu jirin sidee uu rabaa inuu wax u noqdo anu waxaan isleeyahay qaacidada wax bedeli karta ee qofka dhalinyarada maanta wax tari karta ee badbaadin karta ee intaan soo maray dhalinyaro ahaan iyo intaan shaqadaan hayo natiijooyinka fiican ee ka gaadhay iga caawisay 5 baan ku soo koobay 5taasaan idinla wadaagaya waxa ugu horeeya A B C D baan u qaybsaday waxaan u soo gaadsaday attitude waad maqashaan anigoo idinla qoortaayar ka soo adkaada dhalinyaro duruufta nololeedan arkaynaa waxay saamaxdaa in afkaar fog ama caqiidooyin faasida oo aan noloshaada natiijooyin fiican kuu keenin ay mararka qaar dhalaan soo ma laga yaabo waxbaad soo baratay si fiican baad wax u soo baratay fursado shaqaad hore u weyday markii dambe waxaad istiraa laga yaabaa meeshan kama shaqaysa aqoontu waxyaabo kale oo aan fiicnayn baad isku dayday
ama waxaad samaysmay caqiide faasida oo markii wixii isku daygaagii shaqayn waayey si kaloo khaldan inaad u fikirtaa laga yaabo ama markaad fursado hore u weyday inaad naftaada ka shakidaa laga yaabo arrinta ugu muhiimsan ee ugu horeysa waa inaad maalkaaga soo saxdo caafimaadkaaga ku xidhan successkaaga iyo guushaada ku xidhan shaqadaada ku xidhan waxa ku xidhan dadla dhaqankaaga waxa ku xidhan ahaanshahaaga waxa ku xidhan waxaad noqonayso iyo waxaad helayso inaad maalkaaga xorayso ood ka xorayso waxyaabaha horta kow suquuqulka oo tiraahdid nolosha waxa yaalla keeg cid walba qayb ay ka heli karto laba anigu qofkaan noqdo ayaa go'aaminaya waxaan heli karo saddex haddaan isdhiso cidna ima joojinayso afar haddaan ahay qofka ugu fiicane meeshaa jooga cadaad sacab laguma qariyo shan fursaduhu waxay raacaan ay la socdaan kolba intaad taagan tahay haddaad intaad taagan tahay ka fiicnaato mustaqbalkaan arkaysaa ka fiicnaanaya haddaad waxaad taqaanid wax ka weyn taqaanid fursadaha kuwa ayaa ka badanaya maalka maskaxdeena inaan ka xorayno afkaarta faasidka maanta way nagu badan tahay walaalayaal adigoo laga yaabo inaad niyad wanaagsan tahay baad qof la sheekaysan wuxuu ku odhanaya intii aan isla naqaanin laga yaabaa inay laba jeer inaad fikirto ku sabto kow arrinta labaad waxa weeyaan markaad maankaaga soo xorayso soo dhisto afkaar awoodna ku soo buuxiso positivity iyo wanaag ka soo buuxiso maaragtay mustaqbal ifaya aad maaragtay maskaxdaada ku dhex dheerto ee inayaha wax noqoshada maankaaga aad geliso waxaad dib u soo curanayso qodobkayga labaad oo ah iimaankaad naftaada ku qabtay dhalinyaradana badankayga maanta dabarka keliya ku xidhan wax kale maaha waa shaki aad ka qabto intaad taqaanid waa shaki aad ka qabto waxaad noqon kartid waa shaki aad ka qabto inaad waxa u qalantid iyo kale kaliya anu haddii albaabo adag aan soo jebiyey ama dayranaan mar ka mida noloshayda soo dumiyey it was because waxaan aaminay naftayda igu jirta markaad is aaminto waxa furmaya dabaro aanad arkayn dabarka ugu weynee ku hayaana waa kamaalkaaga ku jira markaad naftaada aaminto waxaad helaysaa dariiq markaad haysid rabitaankii doonistay mar walba waxaa imanaysa dariiq mar walba dariiq baa imanaya beli in dib ay dib u soo curato is-aaminidaada war qodobkaa waan ku celceliyaa waxaa laga yaaba maalintii ugu horrayseen hadlay inaan qodobkaa sheegay maalinta iigu dambayseed nolol igu og tahayna qodobkaabaan sheegi self-belief qof kastoo wax noqdo halkan fadhiya ama qof kastoo taqaanido adduunyada joogo wax noqday wuxuu wax ku noqday because wuxuu u maleeyay inuu qaban karo tallaabo uu qaaday tu kaluu ku daray aaminaadiisi waxay sababtay inuu natiijooyin macnala keeno wuuna noqday qodobkayga saddexaad bay gaadsiinaysaa maankaagu caafimaad qaba adduun araggaagu hagaagsan iimaankaad naftaada ku qabtid iyo karaankaagu hagaagsan meel kuma geeyaan keligood qodobkayga saddexaad baad u baahantao aad competence karaan karti labadaa markaad karti ku dartid waxay dhashaan natiijooyin aadan malaysan karin kartidu waa maxay competenceka saddex baa loo qaybiyaa saddexdaasina waxaa la yidhahaa KSA karti haddaad maqashid ama waa aqoon knowledge ama waxa weeyaan skill xirfad ama waxa weeyaan attitude mind awood leh marka maskaxdaada iyo maankaaga aad ka soo shaqaysid iimaankii naftaada ku qabtaa soo noqonaya oo dib u soo curanaya taasi markaad ku ladid inaad xirfadahaaga dhisid aqoontaada dhisid waxaad garanaysid dhisid xirfadaha taqaanid soofaysid waad diyaarsan tahay waxaad tahay awood aan la hakin karin meeshaad istaagta waad iftiimi qofkaad la kulantaba maaragtay dareen awood baad u gudbini qof diyaarsan baad tahay maantana wax ka khatarsan oo ka awood badan qof soo diyaargaloobay ma jiro xitaa waxa la gaarsiiyaa qofka hibada soocaa ilaahay siiyey hadduu ka shaqaysiin waayo dadaalkaa dhaafa dadaalkaa ka awood badan wax walba markaa soo diyaargalowdo trust me albaabadu adigoo ku socda isfuraya fursaduhu waxay kuu hor imanayaan sida buuggaad akhriyayso kale sida bayjajka isku rogayaan qodobkayga afraad bay taasi ii geenaysaa when you have the right attitude ee is-aaminidaad iyo beliefkii uu soo noqdo ee aad ku kabto karaan aqoon iyo xirfad iyo maan xor maan saxa maan caafimaad qaba markaa ku ladho qodobkayga afraad oo ah haddii intaa natiijo aad ku keeni weydo ma garanayo waxaad ujeedo waa inaad natiijo keentaa dadaalku waa inuu natiijo dhalaa halkan waxaad u timidee natiijo haddaan garoon galno oo kubad baan ciyaaraynaa nidhaahno oo kubadda aynaan goolanu samaysan dee kubad ma ciyaarayno waa kaftamaynaa
noloshu waxay xallin leedahay markaad meel xariiqatida tidhaahdid sanadka dambe halkaasaa gaaraya 5 sano kadib programkanaan dhamaysanaya 2 sano kadib career life-keygii noloshayda shaqasanay noqonaysaa caafimaadkaygu san u ekaanaya sanad kadib bishan markay dhammaato buugaasaan dhamaynaya goals inay hadaf leedahay jiho inaad meel u socotid qasdi leedahay oo tallaabadaad qaadaysid inay meel ku abbaaran tahay haddaad garanayba meeshaad u socoto waa daalaysaa markaad daashid waa niyad jabaysaa markaad niyad jabtidna waxaad u yeedhanaysaa kuwa sidaan oo kale niyad jabsan markaad ku yeedhataana waad jilcinaysaa waa laylinaysaa waddanka waxa ma yeelay walba ninkiisa ha noolaysto adeer haddaanu odaygu hor socon wallaahi bilaahi xameelis waa been waa qiilka ay samaystaan dadka diiday inay nolosha ka adkaadaan qofka dhab u diyaarka ahi odayna uma baahdo islaamna uma baahdo anu masraxan inaan yeesho midna kama mas-uulahayn haddaan adig kuu imanayo dankaaleyo shaqo kaa rabo u yeedhan maayo odaygayga maybe hadday wax kala jiran yihiin waan u yeedhan laakiin wax kartidayda ku xidhan cid kale u xil saaran maayo maalintaad dhadhamiso in kartidaada aanay damaanad ku xidhnayn maalintaasaa tahay gabadh iyo wiil isku filan maalintaasaanad kalsooni leh oo qad leh oo maaragtay naftaada aad u aragtid ma ku nuxnuxsan karaya natiija rabaa natiijadana waxa dhala isku dayga tallaabada koowaad inaad qad weliba tallaabada koowaad baa ugu yara adag waa la shakiyaa laakiin markaad dhex tagtid geemkeed isdhex geysid ee tallaabadii koowaad qaadid i aamin waxaad arkaysaa wax kale haddii aanad tallaabada koowaad qaadin maba jirto oo suurtagalnimada waxaad ka fikiraysaa waa khiyaali waxaad dhabnimo ka sheekaysan karnaa marka aad bilowdid shaqada waa qodobkaygii afraad oo ahaa deliver chakeen natiijo macno la keen way nagu badan tahay maanta wax akhristo oo maaragtay qof baa wax akhriyaya qof baa wax baranaya maanta dhan waxbarashuu dabada hayaa way fiican tahay of course qofba intuu yaqaano ku qiimaysan yahay faaligu qofku waxa go'aamiyo ogaalkiisa iyo wacyigiisa iyo aqoontiisa go'aamisa laakiin brother haddaanan natiijo ku keenin oo aanan naftaada isbeddel ka keenin oo qoyskaaga aanan isbeddel ku keenin oo aanan mujtamacaaga isbeddel ku keenin maxaan ku qiimaynaa ogaalka iyo aqoonta haddii aanay aqoonta iyo ogaalka iyo xirfadaha taqaanid waxba bedelayn maxaan ku qiimaynaa I don't know. natiija laga rabaa dhalinyaro in natiijo nafteena waa inaan kula xisaabtanaa waa inaad istiraahaa bishii hore maxaa maanta iiga soo kordhay waa inaad istiraahaa sanadkii hore ogaalkayga wax ma iska bedeleen sanadkii hore xidhiidhadeeda wax ma iska bedeleen sanadkii hore caqiidadeyda ilaahay wax ma iska bedeleen sanadkii hore iyo sanadkii iimaankayga wax ma iska bedeleen dhaqaalahayga wax ma iska bedeleen aqoontayda wax ma iska bedeleen karaankayga waxaan qaban karo wax ma iska bedeleen haddaad tahay uun qofkii aad ahayd 2 sano ka hor you lost big time and I'm sorry for you laakiin waxaan kuu sheegay weli waxaa jira meelaad ka soo noqoto natiijo kula xisaabtan naftaada walaal qodobkayga ugu dambeeyaan kusoo xidhaya walaalayaal insaanka fidradiisa iyo ahaanshihiisa ilaahay u abuuray bay ka mid tahay inuu hore u socdo oo isbeddel sameeyo oo la jaan qaado waqtiga iyo nolosha haddaanad adigu isbeddelayn noloshaa ku beddelaysa haddaad diidday in gudahaaga aad ka soo korto dushaad ka koraysaa garbaad yeelan waad dumi waad soo foorarsan hadhow ilaa iyo dee inta uu qofku cimrigiisu maroo dhan marka haddaad diiddo in gudahaaga aad ka korto oo korriinkaagu noqdo korriin gudaha ka imanaya oo dibadda u soo baxaya korriinkaaga iyo da'daadu waxay ka soconaysaa dibadda waxayna u soconaysaa gudaha isbeddelka ugu macnaha fiican ee insaanka ku dhacaana waa isbeddelka gudihiisa ka yimaada life comes from within noloshu waxay ka timaadaa walaalayaal from within gudaha weeyaan hantidaan idiigu soo gabagabaynaya haddaad hanti maqashaan dhalinyaro waa 3 waa hanti kugu taal hanti kula taal iyo hanti kaa taal 3daasaan idiinku soo gabagabaynaya hantida kula taali waa wixii aad leedahay waa hayntaada waxaad haysatid moobilkaygii gaarigaygii gurigaygii buuggaygii baabuurkaygii jagadaydii dhulkaygii hoteelkaygii waxaad leedahay shaqaysatay baa la dhahaa hantida kula taal hantida kaa taalna ma haysid
وواحد بيشكي ده همومتي الله تعالى وحكوتشرة وحسن نقرية وحسن سبعين دورة وحسن هل دورة تاسع لنا هنتدا ما هيسد مال بيت الله هذه الكلمة الله ويكات الله هنتدا وقع عشرين سنة إن المال جلسة وبعد هاي وحوي هنتدا كوكو تال وهنتدا على جاتها بكرين وهنتدا على جا حد كرين وهنتدا على جا كوبي كرين وهنتدا إن عليك في هيسد وعقل تالا وفهم كذا وهالعري تالا وقصة وكالفور تالا وإيمانك كوكبت وواحد كوجيني ماشى كيف كريس اللي تكتب maalgashiga ugu muhiimsan ee inaad samayso ay tahay waa hantida kugu taalo dhalinyarada suuqa shaqadu uu isbedelayaa maanta qofba wuxuu ka fursado badan yahay qofka kale inta uu yaqaan haddaad rabto value iyo qiimaha ku leedahay suuqa shaqada dhexdeeda inaad bedesho waa inaad bedesho hantida kugu taal maxaa taqaanaa luuqadee taqaanaa xirfadee taqaanaa dadkee taqaanaa aqoontee taqaanaa halabuurkeed leedahay what do you have waxa kugu yaal intaasaa go'aaminaysa meeshaad gaadhaysa dad badan baa ka shakisnaa safarkayga maalintii aan soo bilaabay kii igu qosolka badnaa wuxuu igu yidhi maxamed soomaali hadal baa caddeeye ma aragti dhinac uga wareegti aniguna waxaan ku yidhi hadday tani noloshayda bedeli weydo I don't know what will. ما أقول واحد بدل دولار. مانتا طريقة عن معركة الحي وهي هبطنا. It's not a career. People pay you for money. You get hired. You train CEOs. Yeah, you train bankers. You train business people. Yeah, you train everyone. لكن معها كفتن معها معركتي شيء كمان. وحيو باهن هاي شقة جديد حرفضوا أقوال فرسموا ددهن. دت كدحدة ده وحلا إذا هوحي أتقبضوا حلي جمدو أيها إفتين كقولي what you do in the dark puts you in the light. هبين كي مركب الموضوع سيحرق وعن قبضت أيها درارت إفتين كي كقولي جاي. halkaa yareed oo kugu soo gabagabeynaya halkaa iga gunto haddaad rabtid inaad natiijooyin dhaba nolosha ka gaadhid dhalinyaroy dul xaadiska soo dhaaf shaqo dhab ah baa laynaga rabaa yaanay idin waalin oo ha ku sirmina shakhsiyaadka samaysmay ee nuxurka iyo duxda aan lahayn ee laga yaabo in malaayiin shacbi iska daba joogaan ما رتب نولش أين كل ولاد واحد ربط أين كل ولاد نولل واحترت نفط هذا دك هذا واحترته نولل تيجله نولل إسبدل سماينيسا نولل أقوام كل سن نولل حفظ كل سن نولل هالعبور يهالعرم كل سن نولل كران يكرسون كل سن نولل إيمان يضبني كل سن نولل ضمير كل سن نولل كل سن ده هالبطرته ده هالكوالي نبه هالجنيه مالك واللي نبه على كلماتها واحد كنت عايشها إن تكير بحثات مالك أنت صارته تيك توك فيديو رادوس للموضوع يسوي دكتور أنت سأكون وقف كل أي قرية تحصل ما أنت سكسس كان أركي سواكها ده كي هراء نبتها الشقة نبتها وكل نقطة مركي نلال نبل سميين يوم مركي نتيجة صوعة يكرتين غير حاجة صوب عندكان مركي سيكون أوليزين شرنا قبل كبرشة لكن حل النصيب دروين بين النور هاي قفك أقوم على يعني سن وحال الله حشونا هذا الله ما هذا مجتمع وهاي ملايين دم تشوكتا that's why كمان قف بالهرين اللي وصلك على زمان تكمله عن أي أبو عبور من حد جاب بينه عن شخصية عن شرير it's like a Hollywood والنور خيالي أسمع سنة هكسر منه ولا ريال go back to work كل نقطة شقة كل نقطة مساجدك كل نقطة لايبراريك وصاحب ذاتك أقوم ولا نسينا وإحنا نقدين وإحنا قصدنا ذن النتيجة نبى يدري على معنى له كوكيني شيك قف قاعد وحكبر أنا يسنا قصدي سديمو إيه كاتبوا فوق بندقي what is the story تاسس كوكيني دي قف قاعد لقوا قيمة يوحوا قاري وحلقوا قيمة حقوقين كانت مشكلة هم صحلي عقبنا هم كسوة ثلاثة وحنو نقضي كرتنا وأصلا كرتي كل نقول لايبراريا كل نقول مساجدك
ku noqo xalqadaha diiniga ku noqo seerkaliska saaxiibadaada ku challenge gareeya dhegayso dadka kuu sheegay inay wax badan kaa dhiban yihiin ee wax badan naftaada kaaga baahan dadka u raadixiyo dhegayso dadka aaminsan inaad wax noqon kartid waxaad noqon kartana ku idhaaha noqo ha dhegaysan dadka ku idhaahda waa iska caadi that's easy life is easy hebel baa kaa sameeyey war ma adka waxani aduu baa buuq iska furaye waa been buuq buu jiraa buuqa horee jira laakiin waxa ka dambaysa farxad wax noqosho karti geedaha maanta ay noo baxayad arkaysaan ee muuqmuuqdaa xidida male ha ku sirmina dhallinyaroy ha ku sirmina intaad kor u baxaysid hoosna u bax markay duruufo adag yimaadaan ee nolosha dhabtaa la iskaadho waxaa la rabaa marka duufaan adag yimaadee ku leecisa inaad soo noqotid waayo xididadaada hoos u aasan xididadaada waa aqoon waa iimaan aad ilaahay ku qabto iimaan aad naftaada ku qabto waa xirfado waa halabuur waa ogaal waa akhris intaad kor u baxaysid aad wax baranaysid aad xirfado baranaysid aad magacaaga dhisaysid aad labisanaysid ilaa hoos u qodan xididadaadu hoos ha u koraan qoloftaada iyo ruuxdaadana kor ha u korto si miisaaman u kor and I love you so much